Haweeney Muslim ah oo diiday in ay madaxa banaysato caalamka taariikh ka dhigtay. طبعا مصر يمثل افريقيا والعرب. Si aan uga galno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsan idin badan. Haweeney Muslim ah oo diiday in ay madaxa qawsato ama banaysato ayaa waxa ay taariikh ka dhigtay caalamka kadib markii ay hadafyo waaweyn oo ay muddo ku taamaysay ay hirgelisay una suurta gashay iyadoo dhibaatooyin badan gaaritaanka hadafyadeeda ay kala kulantay. Sara Jamaal waa injineerad dhanka dhismaha ah una dhalatay dalka Masar, sidoo kalena waa ciyaaryahanad kubadda kolayga ah, waxayna haatan isku beddeshay garsoore iyadoo taariikh ka dhigtay caalamka. Sara Jamaal waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xijaaban ee garsoore ka noqota ciyaaraha Olombikada adduunka, waxaana halkaasi horey loogu oggolayn in gabar xijaaban ay garsoore ka noqoto, balse ay caqabado badan oo ay kala kulantay ay kaga gudubtay dulqaadkeeda iyo dadaalkii dheeraa ay u soo martay. Sara Jamaal ayaana waxaa bishii la soo dhaafay ee garsoore ka noqotay markii ugu horeysay ciyaar heer caalami ah oo ka dhacday magaalada Tokyo ee dalka Japan, waana markii ugu horeysay oo ay haweeney xijaaban Carab ah sidoo kalena Afrika ka soo jeeda ay garsoore ka noqoto ciyaaro heer caalami ah. Sara ayaana sheegtay in markii hore amaba bilowgeedii hore ee ciyaaraha iyo garsoorenimadaba ay kala kulantay caqabado badan, iyadoo markii hore waalidkeed iyo asxaabteedu ay u arkayeen qof wareersan, sidoo kalena dhaqan dooris ah oo iyadoo gabar ah kubadda kolayga dheeli karin, balse ay sidoo kale qaar ka mid ah eheladeeda iyo asxaabteeda u dhow ay kula taliyeen in yoolkeeda ay gaarto oo aysan marnaba ka niyad jabin. Sara Jamaal ayaa sidoo kale sheegtay in markii ay tababarka ku jirtay iyo markii ay kooxaha ka ciyaari jirtayba marar badan lagu qasbay in ay xijaabka iska dhigto, balse ay diiday, iyadoo sheegtay in markii ugu darneed ay ahayd markii ay ciyaar heer caalami ah u soo gudubtay garsoorena ay noqotay in ay timid laba daran mid dooro, taasi oo ahayd in ay madaxa banaysato iyo in ay ciyaaraha faraha kala baxdo, balse dadaalo dheer iyo dad badan oo ay la kaashatay ay suurta gashay in ay iyadoo xijaabkeeda wadata oo aan madax bannaanayn in ay garsoore ka noqoto ciyaaro heer caalami ah. Hadda waxa ay ku faraxsan tahay gaaritaanka yoolkeeda iyo sidoo kale in ay marar badan garsoore ka noqon doonto ciyaaro heer caalami ah. Sara Jamaal ayaana sanadkii 2015 iyada iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo matalayeen macallimiinta kubadda kolayga dalka Masar iyo garsooreyaal waxay yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo halkaasi tababar kaga furmay.